الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والعليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka meel kastood ka joogtaan dunida waxaad ku soo dhawaataan walaalayaal barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee ku saabsanaa ka falcelinta qiraa'ada quraanka kariimka iyo arrimaha diinta farqeyntooda aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dadka ku xidhan channelka Islamic Reaction waxaan kaloon aad idinka codsan lahaa inaad channelka saartaan walaalayaal subscribe iyo like oo dadka asxaabtiina commentiyo fiican aad noo reebtaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi addaalu cala alkhayri ka faacili qofka dadka wanaagga gaarsiiya wuxuu la mid yahay sidii qof wanaagga sameeyo kale marka waa inaad faafisaan fiidiyoyadan aynu kaga hadlayno aynu isku dul istaagayno dadka quraada ah ragga qur-aanka akhriya insha allahu tacaala caawa waxaan idinla wadaagi doonaa fiideo cusub iyo qaari cusub qaariga caawa aynu isdul taagi doono insha allahu tacaala waxa weeye sheekh cabdulbaasit cabdisamed sheekhan waa sheekh qaari ah oo caana adduunkoo dhan waa ninka ugu caansan fi lcaalam caalamka ninka ugu caansan weeye ayaa la odhan karaa qaarigan ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariistee wuxuu dhashay 1345 uu dhashay taariikhda islaamka waxaan u geeriyooday 1409 marka wuxuu ku geeriyooday 54 jir isagoo ah daadiisu sidaa umaysi weyneyn haddana caalamka wuxuu noqday ninka ugu caansan ee qiraa'aadka iyo qur-aanka akhriya waxaanu caanimada ku helay waa lijamaali sawti waliasluubihi alfariid sababta waxa weeye codkiisii talmoonaa ee quruxda badnaa iyo qaabkii u gaarka ahayd isagu ku akhriyi jiray qur-aanka ayuu ku helay caanimadaas waxaana lagu naaneysi jiray saaxib alxunjura addahabiya ninkii lahaa dhuunta dahabka ahayd dhuuntiisii dahabiga ahayd waxaa kaloo lagu naaneysi jiray sawtu maka codkii maka mukarama marka idaacadda qur-aanka kariimka ah suuraddii ugu horreysay ka akhriyo waa suuratu faatir idaacadda qur-aanka kariimka masar ka akhriyo waxaa loo magacaabay imaam sanadkii 1951 masjidu imaam shaafici ayaa loo magacaabay sanadka bacdina markii uu geeriyooday qaarigii weynaa isagana la odhan jiray maxamuud cali albanna masaajidkiisii imaam xuseen ayuu ku wareegay oo imaam ka noqday 1952 cabdilbaasit ilaahu naxariistay cabdilbaasit cabdisamed wuxuu adduunkoo dhan ku maray adduunka meelo badan ayuu ahaa isagoo safiira oo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala akhrinaya ayuu adduunka meelo badan tegay waxaana dhegaysan jirtay qiraa'adiisa 100,000 in ka badan sida India iyo Pakistan oo caan buu ka ahaa adduunka meelo badan oo caalamka islaamiga ayuu tegay uu booqday waxaa loo magacaabay 1984 naqiib alquraa fi Misr gudoomiyaha quraada quraanka akhrida ayuu ahaa ilaahu naxariisto cabdilbaasit wuxuu ka tegay laba masxaf muratala iyo masxaf mujawada يعني ميدو عادو أخرني يميت تجويد وكو أخرنيو وحو إذا عاد قرآن كل مصر وضو بعجلة جارة وسيجارة إذا عاد بدنا إليهم دولة مسلمة هي دولة عربية أيو عجلة دو ينودو ذي إن عبد الباسط وحوي وقرآن القرآن كأخريدان كانوا قعد كيس وقتش على هاي أيو كميديا هاي وماي فوفريت شيخ وي قرآن كأخريا ضد بدن أو مسلمين أنا وحوي هاي يعني ستاندر أيو يهي قفة كوديلان أدونك dad badan oo quraada akhriya ay codkiisa ku akhriyo isku daya inay codkiisa ku akhriyaan insha Allah ta'ala cabdilbaasit waxaynu wada dhageysan doonaa qiraa'aadkii laga duubay suuradii laga duubay suuradda ugu cajiibsan sida cajiibka uu akhriyay macnaha uu ilmeenayo waa suurad gaaban waa suuratu duha ayaan wada daawan doonaa insha Allah ta'ala 4 daqiiqadood bay soconaysaa كبعدنا كلمة يرب أيام قصة ختم دونا فيديوغا أن يسلا دعوانا إلهي نحرست عبد الباسط رحمه الله رحمة واسعة بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل. suuradaas saasuu ku dhameeyey sheekh cabdilbaasit. suuradaasina waa suurad nebiga calayhi salaatu wasalaam inta badan la hadlaysa nebiga nimcooyinka ilaahay sugay subxaana wa tacaala, isagoo agoona in ilaahay uu ka dhigay qani, isagoo faqiira in hanti la siiyey, maalinta yawmal qiyaamahana ilaahay subxaana wa tacaala uu raali gelin doono. nimcooyinka ilaahayna ay mudan tahay inuu qofku ilaahay ugu mahadnaqo subxaana wa tacaala. wa amaa binicmati rabbika faxadith. aayaddaasay ku dhammaatay. waad mahadsantihiin. baarak allahu fiikum. sidaas iyo video kale oo cusub insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmat ullahi السائل فلا تنهر
ولا